Raila Odinga oo ah musharaxii shalay looga adkaaday xilka gudoomiyaha midowga Afrika ayaa u soo kaxtimay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Raila oo warbaahinta kula hadlay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegay inuu dib ugu laabanayo dalkiisa Kenya isla markaana uu qabsanayo shaqadiisa. Inkastoo Odinga uusan faahfaahin ka bixin shaqada uu qabanayo kadib guuldaradii qaraareed ee ka soo gaartay doorashadii hoggaanka midowga Afrika, haddana waxaa la og yahay inuu asiga mucaarad uu ku ahaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo isagoo dadaal u geliyay sidii uu ugu mashquulin lahaa xilka balse uu ku guuldareystay. Qorshahaygu waa in dalkayga dib aan ugu laabtaa si aan wax badan aan u qabtay uu yiri Odinga oo ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo waxyaabaha uu qaban doono. Waxa intaasi uu ku sii daray, waxba kama shalaynayo, aad ayaan u faraxsanahay haddii intaasi ay idinku filneen, weli diyaar baan u ahay inaan u qabto adeeg waliba ay qaaradani u baahan tahay, miisaan waliba ha lahaatee. Odinga oo diiwaanka ra'iisul wasaaraha Kenya u galay buuq iyo qayli oo dowladii madaxweynihii saddexaad ayaa haatan la fahansan yahay inuu eeganayo sidii uu culeys xoogan u saari lahaa Ruto. Si kastaba ha ahaatee, Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti tan iyo 2005 Sabtidii shalay ahayd ayaa loo doortay inuu hogaamiyo guddiga fulinta midowga Afrika. Diblomaasiyiin yar ayaa leh way aragnimada la mid ah tan Maxamuud ayaa helay taageeradii loo baahnaa 2 meelood 2 ka mid ah codadka hogaamiyaasha gobolka oo ku shirayay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, taasi oo suurtagelisay inuu qabto xilka wakiilka oo kaga yahay 1.5 bilyan oo Afrikaan ah. Diblomaasigan oo 59 jirka ah ayaa loo arkayaa mid fursadiisa ay yar tahay marka la barbar dhigo siyaasiga rugcadaaga ah ee Kenya Raila Odinga, walow ay falanqeeyaashu ay ku amaaneen ololihiisa xasiloona oo ku doonayay inuu bedelo Musa Faki Ahmed oo dhashay Chad si uu hoggaanka u qabto ururka midowga Afrika.